musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa aad uga xumaaday jawaabtii ka soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu jawaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. qoraal oo soo saaray musharax Abshir Feero wuxuu aad u cambaareeyay aadna uga xumaaday warqadii ka soo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo oo si qalad ah ugu jawaabay hadaladii Ra'iisul Wasaare Rooble. waxaa la yaab leh sida uu difaacay danta Fahad Yaasiin iyo dantiisaba. waxaan idin iftiiminayaa ma dhicin hal mar xitaa inuu ka hadlo arrinta gabadheena qaranka Ikraan Tahliil Faarax iyo dhalinyarada Eritrea xuquuqda iyo bani'aadamka lagu tuntay. Soomaaliya waad u jeedaa nolosheena horumar ma gaarayno anagoo ka hortagin dhibaatada Farmaajo iyo shaqaalihiisa Fahad Yaasiin ay ka wadaan wadanka gudihiisa. waa in si degdeg ah loo taageeraa Ra'iisul Wasaare Rooble si uu shaqadiisa qarannimo u gudan lahaa. Farmaajo iyo Fahadna waa in si degdeg ah maxkamad loo horkeenaa si u dareemaan xanuunka iyo xaqdarrada ay nagu wadaan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay musharax madaxweyne Abshir Feero. arrinta Ikraan iyo dhalinyarada Eritrea Soomaaliya oo dhan ayaa la murugaysan iyo waalidkood carruurtan aan warkooda lahayn. dadka u malaynaya in ay arrintan tahay arrin siyaasadeed waxaan leenahay ma ahan arrin siyaasadeed ee waa arrin xaqa bani'aadamka nagulu leeyahay, waana in aan ilaalinaa xuquuqda iyo naftooda, waana waajibna saaran. waa inaan u istaagnaa xaqa oo ah shay diini ah. anigoo isku duuban waxaan doonaynaa Soomaaliya oo dhan jawaab sax ah oo si degdeg ah. Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxaa laga rabaa jawaab kaamil ah. aawe gabadhii qaranka Ikraan Tahliil, aawe injineer Yariisow, aawe dadkii xaqdarrada lagu dilay, guddi beenaadkii aad magacawday aan weligoodna waxba laga hayn, aawe amnigii, dhaqaalihii iyo horumarkii dalka. qoraalka aad u dheer ayaa waxaa lagu yidhi waxaa tahay khayrul mas-uul, wadanka dib baa u dhigteen, maantana waxaa taagantihiin in qabiilada Soomaaliyeed aa madaxaas u gelisaan. ma intaas bay ahayd awooddiina hoggaanka Soomaaliya aanu istaagno saan qarannimo u dhisan lahayn ee caalamka ugu muuqan lahayn in aan nahay dad nool oo jira, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay musharax madaxweyne Abshir Feero oo maanta si kor uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isla markaana si weyn u cambaariyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana hadlay khilaaf ku dhexeeya labada mas'uul ee kala Maxamed Xuseen Rooble iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Xuseen, RTN, Muqdisho.